أوه والله صبرا هاي واه لا صبرا والله سبحان الله ما نو جوابنا نو سبحان الله dislike ديسلايك تضدك كفر كواس mardo channel baa balxada yaabay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa idin salaam walaalaha ugu qaaliga ah meel walba oo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada janalkayga halkaad igala socotaan waa Fahima Janal fadlan haddaa cusub tahay janalka subscribe saar kadib gambaleelka furo si aad u heshid muuqaalada dambe aan soo wado farxiyo kabayar oo dhulka ku jiiday kooxda waayaha cusub ayaan idin wadaa sidaa la wada socotaan dhowr maalmood ka hor waxaa soo baxday hees lagu magacaabo nabar iyo naxdin oo lagu dhaliilayay madaxda ugu sareysa dowladda farxiyo kabayar ayaa arrinkan ka hadashay oo kooxda waayaha cusub iyo intii ka qayb qaadatay heestaasi dhulka ku jiiday أوه والله صبرا هاي واه لا صبرا والله سبحان الله ما نو جوابنا نو سبحان الله dislike ديسلايك تضدك كفر كواس mardo channel baa balxada yaabay kooxdan waayaha cusub oo lagu yaqaano in ay soo qaadaan heesaha wadaniga ah ayaa waxay ka hor imaanaysaa heesta hadda ay soo qaadeen ee nabar iyo naxdin heesahoodii hore oo marka lees barbar dhigo ay noqon karto marna in ay mucaarad ku yihiin dowladda marna ay dowladnimada ay aada u jecel yihiin oo ay noqonayso heesihii hore ee u qaadeen iyo heesta ay hadda dhow soo qaadeen in ay iska hor imaanayso kooxdan waayaha cusub ayaa horey waxaa uga tirsanaan jirtay fanaanada hodan cabdiraxmaan oo isaga baxday sidoo kale markii ay heestii ay soo qaadeen nabar iyo naxdin waxaa aada uga xumaaday fanaaniin badan oo isla kooxda ku jiray oo ka baxay ugu dambeyntii dalmaryare iyo fanaanka lagu magacaabo digriyo oo sheegay inay kooxdaasi gebi ahaanba isaga baxeen sheegeen in heestaas ay soo qaadeen ay aheeday wax runtii aada looga xumaado sidoo kale waxaa la yaab leh heestaas oo muddo yar barta youtube-ka taala saacado aada u yar ayaa waxaa la arkaya dad ka badan intaasoo kun oo qofood oo dislike taabtay taasna micnaheedu waxay noqonaysaa in aysan heeska cajibinin oo aysan ka helinin sidoo kale waxaa jiraan fanaaniin badan oo kasoo falceliyey oo heeso loogu magac daray nabad iyo nolol soo qaaday oo uga soo horjeedaan heesta ay soo qaadeen waayaha cusub runtii heestan waxay noqotay hees baraha bulshada qabsatay 24 saac ee lasoo dhaafay ilaa haddana runtii maysan daminin arinteeda oo waxaad arkaysaa fanaaniin kasoo hadlaya heestaas in aysan cajibinin ama hees qurux badan aysan ahaynin sidoo kaleeto fanaaniin si degdeg ugu soo falceliya ayaa jira sidii dalmaryare oo hees kusoo garbaashay iyo fanaaniin kale oo halkaani aan kusoo koobi karin waad mahadsantihiin walaalaha ku xiran janalkayga fadlan janalka subscribe saar laagtana dhac kusii fiidiyooga dhiirigelin ayay ii tahay sii shargaray oo lasii wadaag asxaabtaada iyo ehelkaaga waad mahadsantihiin